عثمان وحوي nin fuq maxamed aan ahay daahiro abtiyo gabadha walaashayna sagal waa ka xishooday dagaalku wuxuu ka bilowdan waa aniga xaqiiqda iyo dhabta hadii laga hadlana caaw sagal gabar caafimaad qabta ma ahan hawiye ay cayso iska daaye ayadaanan miyir ahaan u caafimaad qabin miyir ahaan uma caafimaad qabto waliya sidee annaga oo reer fuq maxamed ah oo annaga ehel ugu xiga ay annaga maanta noogu booteynaysa leedahay waxaan soo dirsanayaa tiim waxaan yeelayaa nooca sidee bay annaga nooca noogu booteyn kartaa mid xigta shalay ninkii ugu horeeyay oo antay guri ku xiratay 12 bishan oo ka aamusay ka xishooday wadaan ka maray ayay islaam maanta ilaa gabadha inay xanuunsanto waa arkaysiine maxaa idinku u qiimeynaysid taas la yaab gabadha kiiskeeda uu socdaa shaqay maxkamaddu ka wadaa way iska xanuunsan tahay waxyaabahan baaso meelaha ka haashi wax marka laga xanibaya suucid hala shaqayn suucid waa soo xirtay meel baan ku soo xirtay maanta rami ii balanbalaysay hala shaqayn waxaan iri walaal qaali walaashay baa tahay anigu suucdina dagaal naga dhaxay suucid ayadoo kula shaqaysay aniga waxay la duubtay youtube way la duubi kartaa anna waan la duubi karaa walaal maxaa gabadha kiiskeeda uu socdaa shaqay maxkamadda aanay arkay qofka dhibsatay qof nool waxa ay iga soo garbax aan is aragno ilaa hadda cid jawaab bixinaysa intaas baan samaynay intaas baan aamusinaynay gabdhiyo dhan baan aamusinay waa eekay waxaan ahay nin taariikh Cusmaan ah waxa weeye nin fuq maxamed aan ahay daahiro abtiyo gabadha walaashayna sagal waa ka xishooday dagaalku wuxuu ka bilowdan waa aniga xaqiiqda iyo dhabta hadii laga hadlana caaw sagal gabar caafimaad qabta ma ahan hawiye ay cayso iska daaye ayadaanan miyir ahaan u caafimaad qabin miyir ahaan uma caafimaad qabto waliya sidee annaga oo reer fuq maxamed ah oo annaga ehel ugu xiga ay annaga maanta noogu booteynaysa leedahay waxaan soo dirsanayaa tiim waxaan yeelayaa nooca sidee bay annaga nooca noogu booteyn kartaa mid xigta shalay ninkii ugu horeeyay oo antay guri ku xiratay 12 bishan oo ka aamusay ka xishooday wadaan ka maray ayay islaam maanta ilaa caalay aabahayna caynayso qabriga ku jira aabahay waa tahliil Cusmaan Ciise Aadan Muuse waa gudoomiyaha degmada Xeraale ayadoon hal geed ka taagnay wuxuu ahaa gudoomiye ahaa weligiis lagama sheegin aabahay oo qof dulmiyay maanta aniga intay caysay fadeexaysay wax walba igu samaysay aan ka aamusay ayay waqtigan la joogo bay waxay igu xijeenaysaa wariga ama video ila duub ama suucdi car la duub haddaad la yeeshana tiim baan kuu soo adeegsanaya nacam aniga qof ay u bootaysay may moodo wallaahi oo billaahi oo tallaahi afayeenkan waa la hadlay wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan ku dhaartay iska daa qodax yaroo imiday hadday wax yar samayso diintaan ku dhaartay ilaa xalaadi baashu isla tigi doonta oo qabo gabadha inay xanuunsanto waa arkaysiine maxaa idinku u qiimeynaysid taas la yaab gabadha kiiskeeda uu socdaa shaqay maxkamaddu ka wadaa way iska xanuunsan tahay waxyaabahan baaso meelaha ka haashi wax marka laga xanibaya iska suga hawsha socota daahiro wiilka abti ku yiri ya abti ma maqashaa wiilka hadda kula hadla ma waa wiil kale oo sakaala la yiraahdo abti macaan horta gabadhan waa gabar walaashay markii sida sax ah loo hadlo anum gabadhaas dadka ay ka tabanaysay waan kamid ahaa weligeed xumaan xitaa kuma sameyn wax ayada dhibahay kuma sameyn rag badan waxa arkay inta qolalka soo saara oo aanay cideeda oo gabadhaas xumaan u horseedahay oo ma taqaanaa meesha ayada celin lahayn oo ayada u aqal celin lahayn oo ayada wixii ku xuntahay iyo wixii ma taqaanaa khaladkeeda ay u sheegi lahayn inta qaata ma taqaanaa dhahay naasaasatay annaga ku horseedan oo xalay intay qaadatay ay ku tiri ragga xagga jooga inta qaadatiin soo dila balaani horta ninka iga xaniib badan idilahay magaalka Nairobi baan u joogaa wallahi billahi tallahi weliga qof bil aadan madaxa goos uma geen runta markaa ku sheego laakiin wax walba oo iga tabanayso meel walba ay joogtaan diyaar uga ahay ha soo fadhiisato labada ala yaabanahay naagta aniga arkay jir ahaan iyo body language ahaan ee TikTok soo fadhiisatay ee helaysay qofka hadalkeeda inta dhageysto wax u qaato la yaab arintaas qofka rag bay soo dirsatay maanta telefoonkeeda caynayso oo aabaheed caynayso oo walkeed caynayso Soomaalidu waa cajiibba maxkamaddu way la yaabto abti may maqashaa rag ay soo dirsatay baa horta aniga iyo hanjabay magaalada intay telefoon u soo dirtay xalana live-ka ka dhaysan oo maqlahay ninkaas hebel oo sakaadha waa u fasaxantay qurta ka jir wallahi been moodahay inta qaatay baa telefoon laga soo wacay codad baa la soo duubay
codadka xitaa waxaan rabay inaan qaatay codad bareefado halka mar qofka codku arki karo baa la soo duubay haddana lambar bareefada laga soo wacay waa laga soo hanjabay war waxaan ku yiri Nairobi baa joogaa dan leedahay ugu imow ma fahanti fiiri أنا ناقص جوانا سهل كده حبك من السوق هذا مرة بالحتى أنا كهذا وأكجاب سناي ما فهمتين قف السجل واحد جبته السجل هنجواج ده قاطع قف نورمال الله يفرح عن بريتش ويلك الله يصدر سنة يسوع يا واي أو تيم كان سوي كتير يسوع عبرت عليه أركب ماشي فندو عبرت أس قف أي واحد نبتي قف أي واحد نبتي عبرت أس قف نورمال عبرت أس أنا أركب قف كده بسطي قف نورمال نبي واقع والله الرجال صدر ستوعرك عن عقل لهين وأنا يسور هذا دايرو أبتي waxa ay sameynayso ma janna waxa ay daldalayso har yaabeen meel la taagan tahay ma xadiis bay akhrinaysaa yadu mid ay tahay ay nacayse way anaga ay noogu booteen kartaa anagu ma aribaana miyaan anagu xuriyad lahayn maanan nahayn dad anaga jilayaal oo waxay doonaan sameyn kara sidee u dhigi kartaa wariyaa anaga ila sameynaysaa ama ma baxaysaan ma xoolo anaguna anagu xuriyad baan leenahay dad baan nahay damiir baan leenahay Soomaali baan nahay Islaam baan nahay qof walaashay oo qaldanna wallahi oo billahi oo tallahi inaan qalad ku taagan iska day yuhuud baan raacaya waraanu noloshada qalad ma qaadan gabadhan haday dad qabtan leedahay afayeenka waa la hadlay adeerkeed baan is aragnay waxa uu igula hadlay male waxa ay iga soo garbax aan is aragno ilaa hadda cid jawaab bixinaysa oo jawaab saxan isiinaysa ilaa hadda aanu ma hayo qof walba wuxuu leeyahay hadda way waalan tahay waa walaashay war walaashada ha u sheegto manaag aniga aabahayo isirkayga caynaysa anigu walaal iyo mid inta qofku waa laga darbaxaa oo darbaa loo dhigtay maxay igu haysataa ceel baan isla jaraya waxaan isla jaraya waxay tahay adduunku waxa ugu xun qof adigu kula dhasho aadan ka cadgoosan karin walaale isdaji walaashay baa tahay iga xisho hay caayid idaa shalay shaqada waan kaaga tagay gabar walaashay tahay shaqadaada waan daayay af magaxsha adeerkay way adeer baan u ah waxa dhalay Cabdullaahi Taaliil Cusmaan baa dhalay af magaxsh waan israacna waxaan irinayo gabadha walaashay waad aragtaa niyo maxaan sameeyaa wuxuu yiri niyo aamusay shib baan iri waxba ma dhihin war walaale idaa nag waxay ii noo aragtaaba dad xayawaana meel ugu xareysan midkay doonto ay saari karto midkay doonto xareysan karto hadal baan naga lumay war baan naga lumay balse hadda waxay maraysaa hadday dad leedahay qabsadaan haddaysa qabsaneen maaha soo maaha وحلال iyo waxay sameyn karto ha sameeyso bariyada waxa la nabad la tooga nabad ma aha wallahi oo billahi Soomaalidu waligeed been ma sheegin nabad la tooga nabad ma ahan hadaan dhimanayana dadnimo iyo gobonnimo aan ku dhimanaya dulmina qaadan mayno gabadha Sacuudiya shalay intay guri ku xiratay oo silcisay oo ay wax walba ku sameysay ayaa Sacuudiya intay la soo hadashay waxay tiri ha imaan kasairiya maxaa dhacay qorshe lagu maleegaya ha imaan markaas aan af magaxshay xaaladan baa jirtay maxaan sameeyaa markaas wuxuu yiri adeer cid ku xiranaysa male nabar aan u tagnay maqaayadi baan fariisana markaas ay tiri haye in adeerkay baa tahay ila shaqaan rabaa ila shaqee wax ila samee markaas aan iri maxaan kula shaqeeyaa shalay baad ii dulmisay guriga ugu xiratay